inaan ciidan abaabulo naf iyo maalba inaan la garab istaagno baan Puntland u imi inaan isagu laba diyaaradood bu ka dejiyay boqolaal diyaaradood ka rogno kuwaas oo ka kala imaan doona Puntland SSC iyo NFD iyo kilinka shanaad iyo meel kasta oo dadka deegaanka degaha ku abtirsada degan yihiin meel kasta ay degan yihiin maantaan Garowe ka soo degay ilaahay waa nabad keenay aniga iyo cidii la socotaba muddadaana sidaan wada ognahay waxaan ku maqnaa sidaad la socoteen doorashadii Jubbaland iyo magaalada Kismaayo ayaan jiray ilaahay doorashadii waana ku guuleeyay madaxweynihii Axmed Maxamed Islaam baana la doortay iyadoo aan wax dhibaato ah ka dhicin hadday doorashadii dhacday oo halkaas qaabkii ay dastuuriga ahayd oo doorashada muddadeedii ku dhacday dawladdan lama filaana way soo qaadeen dawladda federaalka ah iyagoo adeegsanaya hantidii ummadda hubkii dhaqaalihii iyo mas'uuliyaddii guud oo loo idmaday oo ku tigrifil awoodeed bay sameeyeen kadib raasi kamboni baa ciidan laga soo rogay ciidankaas oo loogu talagalay Jubbaland in lagu khalkhalgeliyo ama lagu dhibaateeyo madaxweynaha Jubbaland wax badan buu ka sariigtay sidoo horeyba uu sheego 15 bari waa kii qabanayay ma shalay u dameysay ciidamada laga rogayay iyo laba gaari baan arkayay oo Cabdibilayaar laga rogay sida la sheegay qoryo waaweyn oo casri ah oo Masar bixisayna waa laga dajiyay baa leeyahay waxaan rabaa inaan arintaas Xasan iyo maqaarsaarka la socda Xamse ka shaqeynayaan inay kaligood gaar ku tahay dad baa hadal haya ma 91 dhibaatadii dhacday oo kala soo noqon doonta ma cawaaqib xumada Soomaaliya ku soo fool leh isweydiinaya horta cid ku lamaanin mayno ninka la yiraahdo Xasan cid kuma lamaaninayno sababtoo ah hadduu Soomaali khayr u gelayo reerka uu ka soo jeedo qoyskiisa hoose iyo xawaadle oo abtiyaashiisa uu kala celin lahaa xataa baaqnabadeed isagoo diraya ma arag anigu waxaan leeyahay dhiig Soomaaliyeed iyo dhibaato Soomaaliyeed ma rabno qof kasto Soomaaliya oo naga dhintaa waa wax naga maqan beelahaas Abgaal iyo xawaadle nabad baan ugu baaqaynaa ilaahayna nabad ha dhex dhigo baan leenahay Soomaaliya dhan midnimo ilaahay ha dhex dhigo wixii si khaldan u fikirayana aqliga ha u soo cesho sidaa darteed Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka shaqeynayo waxaan isleeyahay isaga iyo ninka la socdo Xamse la yiraahdo oo magacii ra'iisul wasaaraha ku ciyaaray waxaan isleeyahay waxba si ka nimanka ah sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel ay joogaanba in meel looga soo wada jeensado Soomaaliyana god halis ku socotaa nimanka gacanta laga qabto sababtu waxay tahay doorasho aan loo dhamayn oo waaliye oo maanta dadkii laba qof haday isu timaado la qarxinayo hadii la yiraahdo dad baa meel lagu ururinaya waliba aan dadkii u dhamayn iyagana naftoodu halis bay ku jiraa wax loo dhan yahayna maaha waxa imaan doonta in Soomaaliya gasho halis u dameysay oo la yiraahdo dib dambe ma la ururin doonaa hadii aan waxaas xasan ku socdo oo waalida ka istaagin tan dagaalkana ciidanka halka lagu sii wado oo muddadan oo dhan ka digayay meeshii loogu talagalay in cadawgii Soomaali dhibaatada ku ahaa iyo ragaadka iyo muslimka oo dhan in lagu la dagaalamo hadii loo bedelay meel nabada in nabadgelyo darro lagaga sameeyo hadee waxaan ku khasbanahay oo aniga socodkaygu hadda qayb ka yahay inaan isagu laba diyaaradood bu ka dejiyay boqolaal diyaaradood ka rogno kuwaas oo ka kala imaan doona Puntland SSC iyo NFD iyo kilinka shanaad iyo meel kasta oo dadka deegaanka degaha ku abtirsada degan yihiin meel kasta ay degan yihiin Soomaalida kale oo la deegaanka iyagana waxaan leeyahay midnimada aan ilaashano dadka reer Jubbaland madaxweynahooda waxa uu timaynaa ciidanka abaabushin ma ciidanka waa la abaabulaya hadii ciidan lagu soo abaabulo hadee ma niman rag lahayn baa jira hadii Axmed doqon loo adeegsaday oo Xasan Isiri isku jabi iyaga la fagel iyaga la isku jabiyaa ninkii aqli leh Xamse waa ka haraya sababtoo ah Jubbaland waa asaas waxna waa asal waxna waa asalkii waxna waa farac Jubbaland asalkii weeye balse ra'iisul wasaaruhu farac weeye qof baa magacaabay bari cayrinaya halkan Garowe socdaalkaaga ma wuxuu ahaa inaan ciidan abaabushid oo Jubbaland geysid masaasa inaan ciidan abaabulo naf iyo maalba inaan la garab istaagno baan Puntland u imi
arrintaasna cidda ay khusayso waan kala tashan doonaa waxaana insha allahu rajaynayaa dal iyo dabadba dadkeennu inay garab istaagaan reer jubbaland oo mahurtadeennii ah oo maamulkeennii ah oo gardarro loogu soo duulay caddaan ah yaa kula qabo marka aragtida oo dhaqan qof kastoo wax kala yaqaan baa ila qaba oo xamse iyo xasan ka duwan oo soomaaliya reer ma aha weliba keliya waa garta marka ciidan baa tiri waa abaabulaynaa imisaa lagu qiyaasaya ciidamada la abaabulay halkan ka kaxaynaysa kumaan baan ka dejinaynaa intii aan doonno ilaa ciidankeenna meel walba waa joogaa haddii alla idmo marba intii loo baahdo baan ka rogaynaa haddii ilaha idmo jubbaland way isku filan tahay xag dhaqaale iyo xag ciidanba way isugu filan tahay 10 sanoo dambe hadday sii dagaalanto laakiin waxaan tusaynaa maadaaba dhaqaalihii dalka awooddii dowladnimada iyo wixii magaca soomaaliyeed lagu helay lagula dagaalamayo inaan garab siino oo naf iyo maalba la garab istaagnaa waajib bay nagu tahay iyagoo aan weliba codsan oo aan aaminsanahay inaysan cid kale inay ku garab istaagto haddeer baahi u qabin dowlad gaamudho yihiin jubbaland shacabkiina garab taagan yahay